isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnay muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa wali ka taagan halkaasi iyadoo aanan wali wax xal ah laga gaarin arrinkaasi. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan la damacsanaa in murankaasi lagu dhameeyo, laakiinse warar xog ogaal oo VOA-du ay heshay ayaa sheegaya in kulankaasi aanan wax miro dhal ah uu ka soo bixin. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa isna xildhibaanada u diray fariimo uu ku sheegay in berito uu dhici doono kulanka looga hadli doono mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari. fariinta Muudey ayaa imaanaysa iyadoo aanan wali xal labada dhinac la gaarin, mana la saadaalin karo qaabka uu kulanka berito noqon doono iyo sida labada dhinac ay si deganaan ku jirto u yeelan karaan dood amaba cod loo qaado mooshinkan.